kala dooro hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataan kala dooranaysa nebi yuusuf markaana xabsi ku qabto inaan rabbi caasiyo ayaa wuxuuba ka saa daraaddeed wuxuu leeyahay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badanya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahay ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa marka weliba wuxuu uhi wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhina waakun min aljaahiliin ilaahu haddaanad makrigooda iyo khiyaamadooda iyo dhagartooda haddaanad adugu i dhaafinin waa i lagdayaan buu leeya akhra hadday dhacdo taasina wax magaratada ku biirto yaa jaahila qof kastoo ilaahay caasiya jaahila jahligu macluumaadka maaha cilmigu macluumaad madaxayga ku jira maaha cilmigu waa dhowrsan waa intaad ku dhaqantaa cilmiga intaad rabbi kula weyn yahay ee aad maxaarimtiisa ka gaabsanayso ee ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nimco ku siiyey aanad ugu abaalgudayn inaad macsidiisa ku samayso saa daraaddeed buu nabi yuusuf wuxuu leeyahay ilaahu xabsiga ayaa dhaamo waxay ku yeedhayaan haddii aanad adigu i dhowrinna waa jabaya ilaahay wuxuu leeyahay fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahu ilaahay ducadii buu ka aqbalay ducadii markii laga aqbalay maxaa loo sameeyey xabsigaa la geeyey idan ducada laga aqbalay waa maxay xumaha iyo xabsiga xumaha marka kan xabsigani waa xal war xumahaasaa ilaahay soo dhaafiyey dabeetana xabsaa la keenay xabsigaa ilaahay sii dhaafiyey oo maxaa laga dhigay madax ilaa uu ka noqday wasiirka waddanka ka taliya ilaa uu markii dambe gaadhay waa dhowrsanidu dhowrsanaada dariiqaa keentay u furtay daba ayuhala xibba nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay man yadman lii bayna lahyayn wamaa bayna rijlayn yaa labadiisa daan inta u dhaxaysa iyo damaano qaadaya inuu ilaaliyo iyo labadiisa adin inta u dhaxaysa waa carabka iyo farjiga nabi maxamed baa wuxuu leeyahay kumaa damaano qaadaya inuu carabkiisa ilaalinayo waanu xumo kaga dhawaaqaynin farjigiisa ilaalinayo waanu xaaraan ku doonanaynin hadday damaanadaa inagu la nimaadno nebi maxamedna wuxuu leeyahay adman lahu ljanna anna janno ayaanu damaanad qaadaya xadiidka bukhaari haddaa idinku saa samaysaan oo aad ballankaa ka soo baxdaan anna waxaan idin ballan qaaday nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inaad janno helaysaan idan dhowrsoonidu waa cibaada kaa habeen oo dhan taagan waad gaadhi kartaa haddaad carabkaaga iyo farjigaaga kuwa dhowro ka mid noqoto haweenkana waa kii nabigu yidhi haweenay hadday shanteeda tukato bisheedana soorto farjigeedana ilaashato ninkeedana adeecdo albaabada jannadaa la yidhaha kaa doonaysa ka gata jannadu 8 albaab bay leedahay albaaba dad gaaraa ka gala albaab mujaahidiintaa ka gala waa albaab asxaabu